oo maxaan horiyaala cadowgeena waan aragnay waa dilnay wayna dilayaan waa nala dagaalamayaan maanta naguma bilaabin waqti badan bay soo socdeen dad badan oo qiimo badan oo aan jecelnahay oo kala duwan bay dileen haddana kuwa badan ay u diyaarsan yihiin inay dilaan sidaas awgeed xaggeen u soconaa jihada aan u soconaa ayaa muhiim ah waa aragnay inay cadow yihiin kuma kala qaybsanin waxa islaamku ka qabo waa ka dhargsanahay oo culimadeena ayaa ka hadashay waa khawaarij oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ka hadlay waxa ka furan waa in la dagaalo oo la dilo inta aanay ku dilin waxa kale inoo furan waa inaan yeelano iimaan iyo caqiido sugan oo aan aqoonsano cadowgeena midka uu yahay dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo inaan xog badan haynin oo qaarkood halkan ka hadleen waxaan ka maqlay iyagoo dadka Soomaaliyeed ba isku dhamaanaya dadka Soomaaliyeed isku ma dhamaanayaan aragtidu inay naga khaldanta ma way jirtaa waqtiyo dadka Soomaaliyeed ay isku dhamaadeen si aan loo baahnayn laakiin dagaalka maanta socda ma inuuna ahayna waxaad ku garan kartaa dad Soomaaliyeed oo is hayay waa inay sumada ay ku qaybsan yihiin ay leeyihiin nimankaas khawaarijta fikir ay dibadda kala yimaadeen iyo ajenda ay dibadda kala yimaadeen oo iyagu xitaa aanay garanaynin meesha uu ku dhamaanayo ayay xambaarsan yihiin kaasay rabaan inay dhulkeena ku fuliyaan dad kale ayay rabaan inay dalkeena ku casuumaan oo ay ku marti qaadaan intay dadkeena laayaan oo ay dhameeyaan sida daraadeed dabcan waxa noo furan waa dagaalkaas waa socdaa waa la socotiin dawladda Soomaaliyeed dagaal adag oo dhinacyo badan la ay ku dhawaaqday oo saddex jiha leh waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyagoo oo dhinac ka xanuunsanaya dhinaca kalena inaan u bishaareeyo khawaarijta jihada ay maanta u socdaan inay tahay jihadii dhimashada iyo jihadii dhamaashahooda taasoo degdegsiyeedu ay ku xiraa doonto sida aan uga wada shaqeyno dagaalkooda iyo doorka qof kastoo inaga mid uu ka geysto ilaahay subxaanahu wa ta'ala haynoo aqbalay waxaan rajaynaynaa oo aan ku qanacsanahay oo aan aaminsanahay ififaaladeedana aan aragnaa khawaarij inaan kala baxayno inaan ka adkaanayno inaan nabad iyo barwaaqo iyo iftiin u baxayno xanuun kasta iyo dhibaato kasta oo aan hore u marnay ama hadda na sugaya inaan marna awgeed